daawadeel markana aan soo qaadano muuqaal kale oo halku dhag looga dhigay dagaalkii ayda iyo dibiga. C'est une proie parfaite. waraaba golayaashani waxay ugaadhsanayaan loo dibadeedka. La tactique des Lycaons. neefkani muhiim ayaa uu xaggooda ka yahay kooxda waraaba golayaasha ah. ay dibadeedka waxa caado u ah khibradoodana ka mid ah in ay orod ku wajahaan neefka ay ugaadhsanayaan si uu u daalo. Tant que le gnou est en fuite, les prédateurs ont l'avantage. speedka amaba xawaaraha ay ku ordaan loo dibadeedku waxa ka xawaara badan amaba ka sarreeya kan ay goola waraabayaashu ka yeeranayaan iyaga. Mais dès qu'ils s'immobilisent, le rapport de force s'inverse. is-urursiga kooxeeda ay samaysay loodu waa mid difaac u ah badbaadada naftooda. Les Lycaons se retrouvent confrontés à une ligne de défense faite de cornes pointues. loodu waxay adeegsanaysaa geesahooda oo hub u ah waxayna taasi halis gelin kartaa goola waraabayaasha. hase ahaatee loo dibadeedkan waxa iyagana inta badan caado u ah in ay ordaan marka ay khatari soo wajahdo oo ay cagta wax ka dayaan si ay uga samata baxaan cadowga. Les gnous sont puissants. hadda weerarku si toos ah ayaa ugu bilaabmay. looda inoo muuqataa waa kuwa hilib mucaah leh kuna filaan kara raxanta. Mais les Lycaons ont de l'endurance. waraaba gooluhu waxa uu u ordayaa qaab guclayn ah si uu u haftabaxo isla markaasina aanu si dhaqso ah ugu daalin howlgalka. Chasseurs et proies dépassent les 50 km/h. labadan xayawaana ay indhaheennu qabanayaan waxa lagu qiyaasaa xawaaraha orodkooda inay saacadiiba jiraan 50 kilomitir. waraaba gooluhu waxa uu xamili karaa inuu ordo isagoo oon marna istaagin masaafo dhowr kilomitir ah halka loodu ay markiiba ka daali karto. Un gnou se détache du groupe, puis deux autres. naf xarbiga loo dibadeedka orodka cagta loogu hayaa waxa ay sababtay in ay u kala leexdaan 3 jiho. Par manque d'expérience, la meute ne sait pas comment réagir. khibrad la'aan soo food saartay waraaba gooluhu waa ay kala qaybsameen iyaga qudhoodu waxayna ku kala fayreen jihooyinkii ay u kala firdhadeen loodu. arrintaasina waxa ay wiiqitaan ku noqotay awoodii wada jir ee ay ku wada shaqayn lahaayeen kooxdu. La mère et un petit continuent. waraaba golayaashan inoo muuqda waxay soo raacdeeyeen isla markaasina ay baacsanayaan laba neef oo isdhalay. Les autres s'arrêtent, attirés par une proie plus facile. way soo gaadheen hadda isku weerayayna ka qabteen looda isdhashay. hase ahaatee loodu waxay samaynaysaa khibrad ah in midiba dhinac uu geesaha u jeediyo sidii neef laba madax leh. C'est une erreur. Comme un animal à deux têtes, les deux gnous se défendent sur tous les fronts. waxayna jilibka u dhigaan sidii ay isaga caabin lahaayeen ilaa 10 waraaba goole oo aad uga hamuum qaba cunista hilibkooda. balse daawadayaal markan ay dibadeedku waa ay ku fashilmeen weerarkoodii koobaad. meelaan ka fogeyn goobtan ayaa waxa sii baacsanaya waraaba goole dhidiga iyo loo dibadeed laba. waxayna hooyada waraaba goolaha ahi u baahan tahay ciidan la xoojiya qabashada iyo weerarka ay ku baacsanayso dibiga firxadka ah. sidaasi daraadeed waxa judhiiba ka daba yimid hooyadan kooxdii hore ee ku hungowday loodii isdhashay ee mitidka ahayd. rattraper leur mère. Seule, elle ne pourra pas tenir longtemps. adibigan banka cidlada ah ugu baxay ay dibadeedku waqti badan ma xamili karo inuu sii wato orodkiisa. taasi bedelkeed waxa uu bilaabay inuu kolba jiho ugu boodboodo isagoo oo aad uga miisaan culus raxanta.
les renforts arrivent enfin. Quand un lycaon est fatigué, un autre le remplace à l'avant de la meute. goola waraabayaasha kiisa orodka weerarka ku daala waxa soo bedelaya si uu u nasto ku kale oo ka mid ah kooxda si weerarkani halkaasi uga sii socdo. badankooduna hadda way soo gaadheen dibiga iyagoo iska ilaalinaya inuu qoobka neefku dhaawac soo gaarsiiyo kana foojigan haraatidiisa waxayna beegsanayaan bawdihiisa si ay neefka u qabtaan una fadhiisiyaan waana khibradda ugu fiican ee ay ku hantii karaan dibiga. raxanta waraaba goolayaashii waxa ay rabaan in ay hadda si dhaqso ah gacanta ugu dhigaan dibiga ka hor inta uusan gaadhin amaba ka dhex gelin kooxdiisii loo dibadeedka ahayd maadaama waqtigan masaafo yar u jiro looda kale. waxayna loo dibadeedka sheeyda ka eegaysaa neefka la baacsanaya xaaladooda u eeg tahay balaayada ka dhaxla dhiga bay haysataa. labaatan daqiiqo kadib dibigani waa uu daalay maadaama bankani cidlada ah la soo dhex ay matanayay waqtiga intaasi leega waxaanu awood u waayay inuu sii wato orodkiisii isla markaasina uu ka dhex galo cadowga loo dibadeedkiisii kale si uu sii noolaado. ugu dambayn raxantu waqti dheer kadib waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan dibigii ayaanka darnaa. L'inconvénient, c'est qu'ils doivent se partager l'animal. Et dès demain, ils devront recommencer. waraaba goolayaashu waxay u ugaarsadaan mar walba koox ahaan waxayna faa'iidaan 10 jibaar ugaarsigooda maalintii. Dans la plaine africaine, le travail d'équipe et l'endurance sont une formule gagnante. dhulka Afrika xayawaanada wax ugaarsada waxa ay ku faa'iidaan in ay hawlgalkooda ku wajahaan isxulafaysi iyo orod xawliya.